daawade bal ka waran haddii uu waddankaagu safar cirka ah uu kuu diro kadibna intaad maqan tahay uu waddankaagii burburo magiciisii calankiisii iyo xuduudihiisiina ay isbedelaan oo uu u qaybsamo 15 dowladood kadibna la diido in dib lagu soo celiyo sidee ayaad yeeli lahayd bishii May ee sanadkii 1991 irbixiyeen 33 jir ah oo lagu magacaabi jiray Sergey Karikalov iyo waliba gabadh iyo nin kale oo ay saaxiibo shaqo wadaag ah ahaayeen ayaa u carceeray hawada sare iyo saldhigga Mir ee uu halkaas ku lahaa Midowgii Sofiyeeti waxaana loo diray si ay saldhiggaas in waqti ah uga soo shaqeeyaan sharciga u dejisan irbixiyeenadu waxa uu u ogolaanayaa muddada ugu badan ee uu qofku hawada sare ku maqnaanayaa in aanay ka badan 5 bilood muddadaasi haddii ay intaas dhaaftana waxa uu qofkaasi khatar ugu jiraa in ay xanuuno kansarku ugu horeeya ee ay ku dhacaan bishii October ayaa Helen Sharman oo ahayd gabadhii labada nin ku helisay safarka cirka ayaa dib dunida ugu soo noqotay in yar kadibna irbixiyeenkii kale oo Anatoly lagu magacaabi jiray ayaa isaguna ka soo dabadaadagay waxaana meeshii ku hadhay Sergey oo kaliya November markii la gaadhay ayna dhamaatay waqtigii shaqada loogu talagalay ayaa Sergey soo dalbaday in la soo doono waxaase loo sheegay in waddanku uu xaalad xun ku jiro lana haynin dhaqaalihii safarka lagu dabari lahaa waxaana loogu niyad qaboojiyay in uu iska safro oo bisha dambe lagu soo warcelin doono bishii December ayaa uu haddana codsi kala soo dirsaday waxaase loo sheegay imikana in aan dhaqaale loo hayn Sergey waxa uu ahaa injineer aqoon iyo karti badan leh saldhigga Mirna aanu ka maarmayn maadaama oo ay muddo dhaaf noqotay waqtigii uu joogay maalinba ta ka dambaysa waxaa sii daciifayay qalabkii ka difaacayay shucacyada kansarka iyo xanuunada kala sababa isaga qudhiisuna ma uusan niyad wanaagsaneyn waa keligii waxa uu joogaa halkii ay Soomaalidu oran jireen cirika dheer dhulka dheer oo 350 kilomitir ayuu dhulka ka sareeyaa waxa uu waqtigiisa ku qaadan jiray shaqadaas joogtada ah sawirkaasi waxa uu ina tusayaa sida uu hawlihiisa u gudan jiray tobanaan jeer ayaa uu adduunka ku soo wareegay waxa uu daawan jiray dunida oo qayb ka mid ah ay maalin tahay dhinaca kalena ay habeen tahay waxa uu fiirsan jiray dunida oo dadka qayb ka mid ah ay hurdaan kuwa kalena ay soo jeedaan waxa uu dayi jiray dunida oo qayb ka mid ah roobab ay ka da'ayaan meelana baraf uu ku daadanayo dhinacyo kalena dabaylo iyo abaari ay ka muuqdaan waxa uu ku indhadoogsan jiray caalamkan hadoodilan ee muuqaalada kala kaanka ahi uu ka muuqdo mase ogeyn in bishii December ee sanadii 1991 la burburiyay dawladdiisii oo ay u kala go'go'day 15 dawladood magaceedii la bedelay isla markaana ay yeelatay calan cusub iyo xuduud ka koobankeedii hore ma oga saldhiggii uu ka soo duulay ee markii hore dalkiisa ka mid ahaa in uu imika waddan cusub oo Kazakhstan la yiraahdo uu ka mid yahay intii uu isagu mararka badan dunida uu ku soo wareegayay xaaladda waddankiisuna xagal 360 digrii ah ayay kala wareegtay awal hore haddii lagu afgabaadsanayay imika dhaqaalo ma hayno ee balbisha kalena sug wixii December taa ka dambeysay waxa si cad loogu sheegay in ay burburtay dawladdii dirtay ee ballan qaaday in ay soo celinayso sida awgeedna aanay jirin cid ay mas'uuliyadi ka saaran tahay irbixiyaankana waxa uu codsi u dirsaday 15 dawladeed ee uu dalkiisu u go'go'ay waxaase uu mid kasta kala kulmay waji gabax iyo diidmo qayaxan bishii koobaad iyo tii labaad ee sanadii 1992 ayaa u dhamaatay isagoo oo aan helin cid u soo jawaabta waxa intaas uga darnayd in mushaharkiisii la dhimay oo uu la mushahar noqday darawallada basaska kaxeeya marka ugu daran ee cirbixiyaanka soo gaadhay waxa uu ahaa in ay dawladdii Ruushku iibinayso saldhigyadeedii hawada sare waxa ay Australia saldhig ka siisay $7 milyan halka ay Japan saldhig kale kaga gaday $12 milyan sidoo kalena waxa uu maqlay in la iibinayo saldhigga Mir ee uu ka howlgalo irbixiyaankani in uu saldhigga ka yimaado waxay u baahan tahay laba arrin oo kala ah in la helo qofkii bedelayay si ay shaqada saldhiggaasi u sii socoto iyo in la helo cidii dabaraysay dhaqaalaha uu ku imanayo markii uu muddo 10 bilood ah una dhiganta 300 oo maalmood uu joogay hawadaas sare ayaa uu faraj u furmay dawladda Jarmalka ayaa ka bixisay $24 milyan si looga soo kaxeeyo hawada sare looguna bedelo nin kale waxaana uu dhulka u soo daadegay isagoo ay curuuqi iswada gashay awoodna aan u lahayn in uu istaago ama uu socdo arrinta xiisaha leh waxa ay ahayd in uu sitay Trace
ay ku xardhan yihiin magaca iyo calanka dowlad aan markaas adduunka ka jirin, waa calanka iyo magaca Midowgii Sofiyeeti. sidaasna waxa uu ku noqday muwaadinkii ugu dambeeyey ee sitay dhalashada dalweynaha magacaas la odhan jiray. intaas kadib cirbixiyeenkan caan ayaa uu noqday, waxaa loo aqoonsaday geesi qaran. 2 sano kadibna waxa uu bilaabay shaqadiisii oo safarra ayaa uu galay, waxaana uu noqday cirbixiyeenkii Ruushka ahaa ee ugu horreeyay ee hawada u caraara.